bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooran warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah gudoomiye basmo oo maanta kulan la qaadatay waaxda nadaafadda dawladda hoose xamar iyadoo kala hadashay dardargelinta ololaha beecda magaalada Muqdisho guddiga isxilqaan qaran oo maanta lagu wareejiyay gaari ay ku shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka oo howlgallo ka sameeyay deegaano ka tirsan Jubbada Hoose iyo qaramada midoobay oo sheegtay inay ka qayb qaadanayso gurmadka fatahaadaha webiga Shabeelle intaas daawadayaal waxay ahayn qodobadii ugu dooranaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir iminkan waxaad u diyaar garoodaan warkii intaan ka faahfaahsan ayna ku bilawnay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Warbaahina Amir Ahmed Jaketi ayaa maanta kulan la qaadatay waaxda nadaafadda dawladda hoose xamar madaxdeeda iyo howlwadeenadeeda waxayna kula dardaarantay in la dardargeliyo bilicda nadaafadda magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Warbaahina Amir Ahmed Jaketi ayaa waxa ay sheegtay in waaxda nadaafadda dawladda hoose xamar ay lafdhabar u tahay ololaha nadaafadda ee magaalada Muqdisho laga sameeyo gudoomiye basma ayaa kula dardaarantay shaqaalaha iyo madaxda waaxdaasi in ay dardargeliyaan shaqada ay ka hayaan magaalada Muqdisho si magaalada Muqdisho ay u noqoto magaalo bilic wanaagsan oo la tartanta caasimadaha adduunka wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska Soomaaliya ayaa maanta waxay gaari Toyota dhul banaan ah ku wareejisay guddiga isxilqaan qaran ee gacanta ku haya dib-u-dhiska dalka wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska dalka mudane Cabdi Aadan Hoosow oo goobta ka hadlay ayaa guddiga isxilqaan ku bogaadiyay shaqada ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan ee dib loogu dhisayo dalka waxa uu ballan qaaday in ay markasta garab taagan yihiin mas'uuliyiinta gacanta ku haya barnaamijkan ololaha isxilqaan qaran agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna isku duwaha barnaamijka isxilqaan Maryan Aadan Amiin ayaa si weyn uga mahad celisay wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska baabuurkan ay ugu deeqeen guddiga Maryan ayaa sidoo kale sheegtay in baabuurkan lagu qaadi doono shaqaalaha guddiga isxilqaan isla markaana uu wax badan ka tari doono howlaha dib-u-dhiska dalka ee ka socda magaalada Muqdisho ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay howlgallo miino baaris ah ka sameeyeen deegaanada Koban iyo Bangeen oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalladaasi lagu dilay 4 ka tirsan al-shabaab halka tiro intaas ka badanna lagu dhaawacay dhinaca kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa howlgallo ballaaran waxay ka fuliyeen deegaanka Baarsanguuni iyo nawaaxigiisa halkaasi oo ay ku dileen xubno kale oo ka tirsan al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa gobolada dalka waxaa si weyn kaga socday ololaha ciidamada xoogga dalka ay kaga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka kooxda al-shabaab ugu dambeyntiina ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in hay'adaha caalamiga ay diyaar u yihiin taageerada loogu gurmanayo dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle James Swan ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala shaqeyso gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan fatahaadaha wakiilka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in barnaamijka cuntada adduunka ee WFP uu diyaarinayo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee u gogol xaaraya taageerida dadaalada waxqabadka bini'aadanimo ee magaalada Beledweyne iyo goobaha kale ee dhibaatadu ay ka jirto Master Swan ayaa sidoo kale sheegay in xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada iyo hay'adaha samafalka ay la shaqeynayaan mas'uuliyiinta in si degdeg ah ay ku gaarsiiyaan gurmadka lagu badbaadinayo dadka dhibaataysan guud ahaan daawadayaal warkii idinkaga imaanayay warbaahinta codka gobolka Banaadir xilligan waa naga intaa